bulshada Soomaaliland bishaare ma ogtiin basani calankeena iyo warkani la baahiye marka fikrada waxay yiraahdaa Soomaaliland dhexda September ujeedadana waxay tahay in qof kasta oo kamid ah ummadda Soomaaliland hajo waddan gudihiisa ama dibadiisa maalinta September inuu isku dayo inuu muujiyo halka uu ka taagan yahay in ictiraafka aan doonin inuu yahay ictiraafku wax go'an haddaan nahay ummadda Soomaaliland taasna ugu talagalnay inay socoto sanad kasta aan qaban doono ilaa iyo Soomaaliland ay noqoto waddan adduunyada laga ictiraafsan yahay oo xubin ka ah maadiisa ama jamciyadda quruumaha ka dhexaysa. ujeedada waxaa weeye sidii ay taariikhda Soomaaliland qaybteena ku lahayn ama kaalinteena ku lahayn waxqabadkeena inaan geysano. Soomaaliland marxalad badan kusoo martay marka marxaladda hadda ay joogto inay dadkeena maanta qurbaha jooga kaalinteena ku lahaan lahayn iyo wixii aynu ka geysan lahayn in aynu maanta aynu bilowno oo aynu isku dayno inaynu ka qayb qaadano liska waddankeena. marka runtii banaanbaxu wuxuu qiimo weyn ku yeelanayaa marka maalin qura aynu soo baxno meel adduunka ama xilliga aynu ka joogno aynu isku saacad iyo waxbay noqonayo saacadeen kala duwanta laakiin haddii laga bilixi September baa reer Soomaaliland u dhamay ay adduunyaha isa soo hortaageen iyo waddankooda u sheegaya iyo rabitaankooda waxay rabaan waxay tahay runtii arrin aada u weyn. waxaan ku dadlaaba keliyata inta ay soo ilaateen in tusaale ahaan intayna ka fadhida qof kasta jaad u leeyahay laba guri baa inaga soo jeeda labada albaab intay leeg baa taqaana inaad ka tirsanaa simple meel ka dheer baa adoon ka doonin imise shaqaalaha la shaqeeya qofka shaqaalaha la shaqeeya imise qof baa yaqaana waxay ujeedadu ku salaysan tahay runtii in muddada ilaa September lixdeeda oo runtii ahayd waxaan u doonay September inaan u helo waqti fiican oo fursad leh oo lagu diyaar garoobo si wanaagsan marka laga yimaado cimilada iyadana ay doorno waxay ahayd in intaa dhexdeeda oo kamid ah hawlaha wadno ay carruurteena saacad qof bacrutiisu uu heli karo liifladiya yaryar ama ganacsi yar oo kooban oo aad siin kartid jaarkaaga ood ka warkartid jaarkooda weli ma isweydiisay meesha ka adoo uga dadaya ama meeshiisa ama gacanta ka siinaya waxaan fogeyno wax weynahay runtii oo laakiin sida keliya adduunyadu ku samayso xiriirka ama ay isku gudbiso in aynu ku gudbino oo qof kasta bal horta ka bilaabo aqoonsi wadaadin inuu isagu keeno qofku la shaqeeyana ku aqoonsado jaarkaaga ku aqoonsado intaan bal adduunyada kale aynaga wixii lagu kabo rabnaa balwada political chamber of politics meelaha siyaasadda lagu goynayo saxaafadda ayaa gaarsiisay fikirka shacabka maadaama aynu inagu markaa qurbaha joogno haddaynu is-abaabulno maalin international oo dalka qurbaha oo dhan dunida laga soo baxayo meel walba waxay samaynaysaa in raacil caamka indhihiisu ayna arkaan dadkani maxay doonayaan goobaha siyaasadda lagu gooyana uu fikirku galo oo la yidhahdo dadkani maxay doonayaan marka la is-su'aalo dadkan maxay doonayaan dadkan self determination bay doonayaan waxay doonayaan xuquuqdooda ayagooda inay ka tashadaan waa waxyaabaha inay soo taagi kareen taas wax kasta wax dadka u tareeya dalka oo wax aqoon in ay qayb ku habboon laakiin waxaa jira war cusub haddaad la timaado dad markaa ma wada qaataan sidaaday doonaan wada fahmaan way kala dambeyn waxay cid baa soo saarta fikrada la timaada mujtamacii in yaroo kamid ah raacda marka horeysa hataa diinta islaamka nabi maxamed alayhi salaam in yarun baa raacday marka horeysay haddana in kaloo badan baa raacda ma baahna marka qof niyadda kala jira qof maalinta guriga iska fadhiista shayga u baahan yahay waxa weeye qofka soo baxa maalinta oo wixii fikrana kusoo kordhiya maalintan oo soo baxa oo maaragtay usoo diyaar garooba oo shaqadiisa iyo hawlaha kaleba
maadaama waqti la siiyey uu imika qorshaha kusii darsado hadduu dhakhtar leeyahay hadduu balan kale leeyahay oo isku dayo inuu maalintaas uu ku beego in bulshadaasu ay wadaan maalin la yidhaahdo my Somaliland oo ay ugu talagaleen in maalintaa ay noqoto maalin caalamka oo dhan ummadda reer Somaliland meel kastay joogaan in la ishortugo madaxda muxuu ahaay wadamada khaas ahaan kuwa aynu ictiraaf ka doonayno oo loo muujiyo muxuu ahaay baahida dadka reer Somaliland meel kastay joogaanba iyo sida ugu heleen wadankooda xoroobo isla markaana dhaqaale yar oo aan badnayn inay isku daraan si ay dalkooda maalinta ay ugu horumariyaan oo ay soo jeediyeen